السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدي لهانتي بددكينا داوانيو waxaad ku soo dhawaataan taxanaha taariikhda Soomaaliya waan maanta ku soo qaadan doonaa ama aan ku eegi doono halgankii labaad ee Soomaalidu ay la gashay gumaystayaashii ku soo duulay waxaana soo qaadanaynaa taariikhda iyo halgankii Sayid Maxamed Cabdille Xasan Allah u naxariiste محمد عبد الله حسن wuxuu dhashay markay taariikhdu ahayd sanadii 1856 Google la oran jiray ama la magac baxay Goboysane wuxuu ahaa gubur waaqaha oo dad iyo dunyaba wixii dhashay hanaqaad noqdeen wuxuu sayidku ku dhashay balliga la yiraahdo Sacmadeeqo oo 7 mayl u jira markaas Boohoole kan xiga dhanka waqooyi waxa hooyadiis la oran jiray markaas Caraseed Magan quraanka wuxuu ku bartay gurigooda cilmiga diinta waxa uu markaas ka raacday xeer fadhiye jirtay nugaal xarunteedina ay ahayd markaas dooxada la yiraahdo Casuura iyo Yaahel abaarihii dhacay sanadii 1892 waxa uu u kacay markaas Maka iyo Madiina waxa ayna israaceen 13 wadaad oo ay markaas isu xirahaayeen labagu iyo dheeraad bay Maka iyo Madiina markaas ku maqnaayeen sanadii 1895 ayaa Sayid Maxamed markaas uu ku soo noqday dhulka Soomaaliya waxa uu ka soo tagay xeebta magaalada Berbera Sayid Maxamed Cabdille Xasan markii uu Berbera ka soo degay sanadii 1895 isagoo xajka ka yimid waxa uu tagay meeyga markaas magaalada Berbera isagoo fidinaya markaas diinta Islaamka waxa uu dadka ku wacdin jiray markaas inay israacaan iskuna ay joojiyaan dirirta Sayid Maxamed Cabdille Xasan waxa uu heshiis dhex dhigay beelihii halkaas wada deganaa markii ay culaadi soo kala dhex gasho sida awgeed Ingiriisku waxa uu sayidka u arkeena markaas ugu horeynba inuu yahay mid laga dambeeyo awoodna u leh inuu markaas xal siin doono ama xal waara uu ka dhex dhalin karo beeraha Soomaaliyeed ku-xigeenkii qunsulka Ingiriiska ee Berbera u fadhiyay waxa uu xiriir joogto ah markaas la lahaa Sayid Maxamed Cabdille Xasan hadii uu meega markaas qas ama rabshad ay ka dhacdo waxa la soo socodsiin jiray Sayid Maxamed Cabdille Xasan waxaana markaas lagu codsan jiray inuu qaskaasi wax ka qabto Ingiriisku waxa uu ogaa in sayidku uu leeyahay xir badan hase yeeshee marnaba markaas kama uu cabsan ama kama uu filayn inuu halgan gobonimo doonahay ka bilaabo gayiga Soomaaliyeed sanadii 1899 waxa soo baxay warar tibaaxaya oo magaalada Berbera soo gaaray in Ingiriiskuna uu maqlay in Sayid Maxamed Cabdille Xasan uu urursanayo rag iyo markaas saanada uu ku duulaan tago ama uu ku qabsado degmooyinka koonfur bari ee gobolka Waqooyi dawladda Ingiriiska waxay markaas ku dhaqaaqday in arintani ay ogaado waxa ka jira run iyo been hase yeeshee uma suuro gelin inuu markaas si sahal ah ku ogaado akhbaarta sayidka waayo dadka Soomaalida ee reer guraaga ahaa waxa ay diideen in Ingiriisku markaas uga xog waramaana waxa jira 12 Abriil sanadii 1899 qunsulkii sare ee Ingiriiska gaashaanle sare Hayes Dawson waxa uu soo gaaray warar sheegaya in Sayid markaas Maxamed Cabdille Xasan uu madax ka yahay ciidamo hubaysan oo tiradoodu gaarayaan 3000 oo markaas dabaabaysh ugu jiray inay duulaan baan ku soo qaadaan Ingiriiska bishii Agoosto sanadii 1899 waxay ilaalada Ingiriiska markaas sheegtay in sayidku uu yimid magaalada Burco isagoo markaas wata ciidan 5,000 oo markaas 1500 oo kamid ah ciidankaasi ay yihiin fardoole isla markaana 300 oo kamid ah ay haystaan banaadiq magaalada Burco waxay ahayd markaas meel xagga tabaha dagaalka aad ugu haboon waayo waxa ay lahayd biyo joogto ah xilliyada abaaraha Sayid Maxamed Cabdille Xasan markii uu yimid waxa uu si bareer ah ugu dhawaaqay inuu dagaal gobonimo doonaahay uu Ingiriiska kula jiro ciidankiisuna waxa uu markaas ugu magac daray daraawiish waxa uu faray beelaha Soomaaliyeed oo idinay markaas gumaysiga Ingiriiska la dagaalamaan oo iska dulqaadaan heeryada gumaysiga saara
waxaan kusoo gabagabeynayaa halkaasi qaybta koowaad ee halgankii iyo taariikhdii sayid maxamed cabdille xasan intaan ku kulmayna qaybta xigta waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo fi amaanillaahi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh janaalka subscribe saar like share comment ha ka ilaabin janaalkan taariikhda si aad ula socotay qaybaha taxanaha taariikhda Soomaaliya